متهاجرت ورياحه hadhow baad ooyi doontaa hadda adiga sida u hadlaya laba nino ilmaadeera toddobadan sano ka qabsanaya maaha ka kale ee toddobada sano qabsan doona baad maxamed u ooyeysaa run baa lagu sheegay raacadna run wali kuma sheegin maxamed run baa lagu sheegin markaad laba nino ururo walaal aad isku xoqaysid ee khayriyada dhexdeeda kaga ololeynaysid raacadna baad cod kaga heli ورياح برواقي iyo hilaa ambaaraysa ree awdal cod kaga helimaysid xisbiga wadan iyo la socotana meelha kaga dhicin ee maxay haytay khayriyada dhexdeeda kaga ololeynaysid laba nin oo ilmaadeera way istacweeyeen way ismax qoor xirib meesha sawariya intay shal istacweeyeen buu nin waliba ururkiisa maanta wata adigu maxamed ma wadan kartaa maxamed labada nin waa ilma adeer waad arkaysaa labadooduba way tartamayaan labada nin intay hami yeesheen awdal oo dhan labada urur ka kala samaystay weeyaan iyagoo jifo kaliya ah iyagoo jifo oo kaliya ah bay laba urur ka kala samaystay Soomaaliland wariyaaha adiguna waxaan adigu lahayn oo toddobada sano ee dambe ee la soo dooran doono bad maanta uu ooyaysaa maxamed wiilkii maxamed xaashiyow waan ku salaamayaa laakiin ha ku ololaynin maxay tahay barwaaqi iyo maxay tahay hilaac waxa u dhaxeeya ha ku dhex ololaynin oo dhexdooda ha gelin dadkii shacabku way ku fahmeen maxamed oo hintaadii waa la fahmay qoriis mariskaagi waa la fahmay waxadan lahayn inaad u ooyeysid wariya maanta waxa lagu jira tartan adag maanta hadaan ururada mid la soo bixin ragga maxaad ku xagxagan hadhow raggan maxay tay beesha dhexe hadhow maxaad ku xagxagan wixii aad adigu lahayd maanta soo saaran ka raaday maxamed waxaad adigu leedahay baad maanta u ooyi kar laaday maxamed waxaad adigu leedahay maanta gobolka awdal uu xaq u leeyahay baad u ololeeyay waxaad maanta u ooyeysay maxay tay labada urur ee awdal adu aflagaadeynaysa ee u sii dhaxmaraysaana waa urur kale oo bilaadan leeyahay wariya urur bari laga leeyahay ololeynaysa kuwii galbeedka laga lahaana maanta maxay haytay wadaya wax ka sheegaya af Soomaaligaaga hadaan hagaajisan weydo ugu dhax ololayso oo ugu dhax qadayso cid ka qaadanaysa meel maxamed soo adeegsaday leeyma ka soo adeegsanay runtiisa marwan iska dhax baadhayay iyo inaad saami qaybsan ree awdal rabin inaad wax ree awdal u soo kordhay rabin inaad maxay wax ree awdal leeyin aadan rabin kaaga toddoba sano oo iman doonto u sii ooyayo waxaan ku leeyahay dana wax ka weyn baad xirantahay kabka weyn way ku jabisaayay maxamed abiibo fadeexadan hadaa joojin weydo waa lagula wadaya waliba nin kale oo maxay tahay ku soo jawaab ma reerkaad ku xoqanaysay ana ku taagan dariiqaad martaba khayriyada inta tagto inaad anagoo dumarana nooga soo jawaab ku soo mariyaan bilaayihiin runna waa lagu sheegay wariya hadii saami qaybsi ree awdal ama kursi ree awdal u soo kordhay aad doonayso maalintii uu maxay tahay Ali Xamed uu u tartamiyay golaha gudoomiyaha golaha baarlamaanka adiga xiniyo lagu haba ku dhigay qabso horta adiga xiniyaha iyo lagu haba ku dhigay oo maxay tahay uu ka soo bixi karo ayuu ka talaabsan waay isagoo ki ku hiiliyay wariya maanta waxa tiri maxay haytay adiga ayaa yiri maxay haytay tolkay baan la tashanayaa Axmed Ismaaciil Samatar wadna gobolka awdal kaalay markuu Axmed Ismaaciil Samatar yimid maanta maxaad ugu jawaabtay wuxuu doorashada galibaayo wuxuu maxay haytay waa la isku qabsado la isku dacweeyay wariyaaha niman kala dharkaysid qoori xiro kuma heshiiso Axmed Ismaaciil Samatar iyo ilma Xaamud dhexdooda waxaan uga shaqeynin iyo Ali Xuseen dhexdooda waxaan uga shaqeynin qoori xiro kuma heshiisadee siyaasaduna laba nin kama wada qosliso adduunka aad arkaysa maanta nimanka aad u kala ooyeysa waa kala siyaasad laakiin waa ilmaadeer labada nin aad arkaysa Axmed Ismaaciil Samatar iyo maxay ay tahay ilma Xaamud Jibriil waa kala siyaasad laakiin waa ilmaadeer maxamed waxa shisheeyaa intaad u ooyeyso waxaad adigu leedahay u ooy baan ku leeyahay khayriyada inta tagto inaad anagoo dumarana nooga soo jawaabto ragii maxay haytay siyaasadda ku jireen inaad aflagaadayso oo tiraaha maxay haytay hilaacba maxay haytay la baabi'iyay hadii hilaac la baabi'iyay mad barwaaqo taageertid wariya hadii hilaac ay isku dacweeyeen waa rag ilmaadeera dacwadina waa laga soo saaray doorashadiina uu gelayaa maad labada carar hadaad wax samaroon leeyahay maxamed oo doonaysid maad labada ilmaadeerka ay maxay tahay ilmaadeeradaaya maad mid taageertid wariyaaha hadhow baad ooyi doontaa hadda adiga sida u hadlaya laba nino ilmaadeera toddobadan sano ka qabsanaya maaha ka kale ee toddobada sano qabsan doona baad maxamed u ooyeysaa run baa lagu sheegay ree awdalna run wali kuma sheegin maxamed run baa lagu sheegin markaad laba nino urur walaal aad isku xoqaysid ee khayriyada dhexdeeda kaga ololeynaysid ree awdal baad cod kaga heli wariyaaha barwaaqi iyo hilaac ambaaraysa ree awdal cod kaga heli maysid xisbiga wadan iyo la socotana meelha kaga dhicin ee maxay haytay khayriyada dhexdeeda kaga ololeynaysid laba nino ilmaadeera way istacweeyeen way ismax qoor xiro kuma heshiisa wariya intay shal istacweeyeen buu nin waliba ururkiisa maanta wata adigu maxamed ma wadan kartaa
maxamed labadan nin waa ilma adeer waad arkaysaa labadooduba way tartamayaan labadan nin inta hami yeesheen awda loo dhan labada urur ka kala samaystay weeyaan iyagoo jifo kaliya ah iyagoo jifo oo kaliya ah bay laba urur ka kala samaystay Soomaaliland wariyaaha adiguna waxaan adigu lahayn oo 7 sano ee dambe ee la soo dooran doono bad maanta uu ooyaysaa maxamed wiilkii maxamuud xaashiyow waan ku salaamayaa laakiin ha ku ololaynin maxay tahay barwaaqi iyo maxay tahay hilaac waxa u dhaxeeya ha ku dhex ololaynin oo dhexdooda ha gelin dadkii shacabku way ku fahmeen maxamed oo hintaadii waa la fahmay qoriis mariskaagii waa la fahmay waxadan lahayn inaad u ooyaysid wariya maanta waxa lagu jira tartan adag maanta hadaan ururada mid la soo bixin ragga maxaad ku xagxagan hadhow raggan maxay tahay beesha dhexe hadhow maxaad ku xagxagan wixii aad adigu lahayd maanta soo saaran ka raacday maxamed waxaad adigu leedahay baad maanta u ooyi kari laaday maxamed waxaad adigu leedahay maanta gobolka awdal uu xaq u leeyahay baad u ooleeyeen waxaad maanta u ooyeysay maxay tahay labada urur ee awdal adu aflagaadeynaysa ee u sii dhaxmaraysaana waa urur kale oo bilaadan leeyahay wariya urur bari laga leeyahay oolanaysa kuwii galbeedka laga lahaana maanta maxay haytay wadaya wax ka sheegaya af Soomaaliga hadaan hagaajisan weydo ugu dhax ololayso oo ugu dhax qadayso cid ka qaadanaysa meel maxamed